waa subax hore waxaanu ku waabariisanay nabad iyo caafimaad halkaanu ku sugannahay waa Soomaaliya magaalada Kismaayo waxa uu saaka qorshaha iyagu yahay inaanu booqano deegaanka Goobweyn oo 15 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo Goobweyn waxa ay ku taalaa Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose waa mid kamid ah goobaha uu Rabbi ku galaday quruxda dabiiciga ah marka loo fiiriyo dalxiiska adduunkana waxa ay kamid noqonaysaa goobaha ugu quruxda badan ee mudan in loo dalxiis tago gu'ya jilaalba indhaha ayaa ku doogsada bilicda dabiiciga ah ee Rabbi ku galaday waana mid kamid ah goobaha Qur'aanka Kariimka ah lagu sheegay waxaana Allaash qaraaraysa marka aad aragto sida ay u kulmisay biyihii badda iyo kuwii webiga واو أنا معي هذا غرفة الأمهات بيها هذا الكيسان ماش لو دلاعية سان السعودة إلا أي وحي سعنيان كر وحلو ورابين يا بيرهاس مركا نمادي له بكمل ما شاء الله dhir dugsoon dhul carfaya dhiiriga roobka iyo biyuhuna la saaxiibeen midhaha dabiiciga ah iyo beeruhuna jaar la yihiin marka aad kaban iyo kalluun la hoos fadhiisato geedaha cambaha iyo qumbaha waa dareen aanu qofna sheeko ku koobi karin waaw ibrahim tarwa saab dhaqankiisa ka war bismillaah macaka oo xalay samri ردادي السلام صوت صدورك لا الله أحيا مكيان أركضا ملو ميكولي موقي يجعي موقي يجعي
lisbaan lahaaye iyadana xibaan lahaaye labeenha cadkaan lahaaye nawriisu lisbaan lahaaye iyadana xibaan lahaaye labeenha cadkaan lahaaye nafaqaha cuntaan lahaaye naxdinta ka jirbaan lahaaye nasiib la xulbaan lahaaye nafaqaha cuntaan lahaaye naxdinta ka jirbaan lahaaye nasiib la xulbaan lahaaye baahaye halkii noloshii jirtiyo Norway oo jirbaan lahaay naftaane baahaye halkii noloshii jirtiyo Norway oo jirbaan lahaay nasriga taan moodayo waxaan samada u lalalay ilaa noloshii dadnimo anaa kala garanaage waxba nacas bay ahay ilaa nacas bay ahay nasriga taan moodayo waxaan samada u lalalay ilaa noloshii dadnimo anaa kala garanaage waxba nacas bay ahay ilaa nacas bay ahay waxaa kale oo ay gooboyn caan ku tahay geedka qumbaha oo aad u qiimo badan loogana faa'iideysto siyaabo kala duwan halkan ayuu ku eg yahay gaadhigu waa inaynu u lugaynaa halkii ujeedka safarkeennu ahaa oo ah isku darka badda iyo webiga qiyaasi waxaa lagu sheegaa in dadka qaar ay u lugeeyaan 1 saac qaar kalena ay u lugeeyaan 1 saac iyo wax la jira marka waxa maanta lagu ajafaynaa waqas Umar Siyaad oo waxaan ku yiri آمين إن شاء الله شغل قرح بدل ما رجعين إلى سوقون كيف هاي إن شاء الله تعالى هاي الغني درون تبرر قوتا إن شاء الله تعالى هواي لبان سويسة هواي وطدير واي إن شاء الله ينوت تقدر رجعين إلى ولا شو حيرادين إلى العلس مقال قلت له وضد أنت أستير لك وحي بورصورني أنا بركة صارتي إلا ده يقول شيء ما شاء الله دينا نسويس نوضنا كنا رجينا إن شاء الله تعالى نوضنا بسولة ونأخذ كنا نوصل قبصنا إن شاء الله تعالى وراها سر الشيء وحكوا شرو قريوهي قريها كوه شرو دوغي أحسن حكتها كوه حنا ووين عادي يكون اسمه يلا بعد كاسة آسف طريق كليلي إن شاء الله مقالة مركان بسولة ونوها ورئيسان دونا dad xog dheer ah ka haya magaalada insha Allah taala iyo gooboyn iyo taariikhdeeda hadii Ilaahay ka raali noqdo صور قرح بدن ku arkeen صور ku qaatan bay rabaan meeshan ka heshan
في هذا قرح بدن عبدي عمر حسن اسبور اسكو دركا كإيماني جو غير ويفي أنتاي هاي maxay ahayd aday baad marka ku wadataa ma adiga waday أنا soo gurtay hay adayga hay hadda waa soo laabtay waa galban rabaa waad iibinaysaa gooweyn baa ka iibinaysaa ma sha Allah waad ku shaqaystaa Soomaa maalinkii meeqa jeer aad doontaa laba mar maalinkii laba mar aad doontaa nolol maalmeedkaaga ka soo saartaa cidaa ku bisho miyaa jirto may hooyaday la iska siiya hooyadaa waad ku bishaa ma sha Allah wax qurux badan waaye wiil yar oo fariid ah oo shaqaysanaya hooyadii u shaqaynaya tahay aad baa u mahadsan tahay ka waran suudarka hadda intuu noo jira suudarkan u soconaa u lugaynayna way fog waayahay aad baad u mahadsan tahay waxaan ku leenahay muuqaalkan ma isticmaali karnaa soo dayn karnaa oo fasaxanayso maaha aad baa u mahadsan tahay xaaji axmed maxamuud xasan waa 70 jir sida uu ii sheegay waxa uu deegaan ku ahaan jiray magaalada Kismaayo balse waxa uu muddooyinkii dambe ka mid noqday beeralayda jiinka webiga Jubba deegaanka ku noqday wuxuuna inoo sheegay inay halkan ka caafimaad badan tahay magaalada sidoo kalena ay muhiim tahay inaynu xooggeena maalno maadaama Ilaahayna siiyay dhul khayraad leh tabcashadana ku wanaagsan waxa ahaa 70 jir alxamdulillah ilaahay caafimaad waa siiyay Soomaaliya waxa leeyahay magaalada ka soo bax beeraha alfalo caafimaad loo beeraha fala ma sha Allah haddii kale magaalada falidiina dhididna gama baxaayo wax walba dhid korkiin dhid ka baxaya cuntiin waa noo fadhiisay cajeerada noo fadhiisay cudurku uu koowaad waay beeraha alfala ilaa horana laajiyo daweyna leeyahay oo badka shaqayso waxaas dhan wax soo baxay waxa degiyaa beertii webi abkiisa dagacday webi abkiisa barya basarka abuura bocorka abuura yaaya abuura galeeda abuura wax kasta abuura waxa dhimcada Sacuudiya Soomaaliya ka taajireen maanta Allah nafasiyo buurti baan soo gaarnay hadda waxa waa badi aan noo muuqato hadda ugu rajo fiicanahay taas badi ma jidaan laakiin still been inoo sheegaysaa marka sawirka laga arko waxa dhawaysaa ka ay dhigaysaa way fogtaa still been bay inoo sheegaysaa واو runtii waa dareen aad u qurux badan saaxiibayaal mar kale idin salaamaya waxaan idin leeyahay mar kale kulan wanaagsan waxaynu soo lugaynaba soo soconaba maanta waa 8 saacadood duhurnimo hadda iyo wax la jira waxaynu soo gaadhnay halkii yoolkeenu ahaa targetkeenu ahaa geediga safarkeenu ahaa ee ahayd
barta ay isaga daraan badda iyo webiga fursad ayaan u yeeshay maanta inaan biyaha badda iyo biyaha webiga lagu hageliyo oo markaas isku daraya halkii Allah subhanahu wa ta'ala oo ayada quraanka ah ku lahaa marajal bahrayn taqiyani wallahi aad baan u faraxsanahay beeraleyda soo dhaxmarnay qabada la kulmay ma jirin dareen gooni oo cajiib maanta in badan baan gooweyn iman jirnay oo dhulkii aan soo marayno quruxda badnaadan ka laaban jirnay oo intaas oo dhammaan soo lugeyn jirin sababtoo ah halkan ma jirto ma soo galo gaari ma soo galo waxaad soo lugeynaysaa hal saac iyo wax la jira alxamdulillaah dalkeena waxa uu leeyahay goobaha dhif iyo naadirka ku dunida goobaha adduunka aad loo jecel yahay meelahan oo kale runaantii adduunka rul ma dhacaan waa markaas meelaha la maalgeliyo ka xumahay maanta inaanan haysanin hal cafeteria xataa oo biyo ka cabno annaga iyo qolo kale dalxiisayaal ah oo halkan aan ku aragnayba qof markaas barnaamijka aad arkaysiin quruxda badan haddii maanta cafeteria inta ku wali lahayd aad u xiiso badnaan lahayd marka waxaan ganacsatada maalgashadayaasha dalkeena qurbo joogteena dadkeena hantida leh aan u sheegayna inay fursad ka bannaan tahay dalkeena runtiina ammaan weeyaan maanta dhan annaga afartanada barnaamijka duubaynay ilaa iyo halkaas aan soo lugeynay kulli waa daawateen muuqaalka sidaan filayo cidna ilaalinaysa ma jirin halka isaga daraan badda iyo webiga aad buu jawigu u qurux badan yahay run ahaantii waa cimilaan laga sheekayn karin madaxayga way ka weyntay waxyaabaha aan la cabiri karin waxaa ka mid ah dareenada rasmiga ah so maanta dareenkayga rasmiga maba cabiri karo aad baan u faraxsanahay in yoolkaygii ama yoolkeennii ahaa inaan soo gaadhno barta rasmiga ah ee badda iyo webiga isaga daran inaan soo gaadhnay waan filayaa saaxiibadeena Soomaaliyeed ee markaasi ilaahan ka mid ah ku xidhana in markaasi ay ka helaan muuqaalada markaasi oo markaasi ay wax badan ka barteen dalkeena iyo bilicdiisa iyo markaasi goob weyn bade aad wax badan ka barateen muuqaalkaas waxa weeyaan webiga Juba sida uu runta u qalqaloocdo wax aad u xiiso badan laftirkeedu oo dareen gooniya leh markaasi aad u maasantiin dawaan wada dalxiisaynaa waan isla joognaa ilaa iyo markaas maanta waan isla soconaynaa insha Allah taala waaw qara ayuu noo soo qaaday adeerkii wanaagsanaa ee wareysanaysa waa soo laabanay runaantii anagoo soo daalnay adeerkii wanaagsanaa wuxuu istaaga qara idin siinaya dadkeena qasiib saasay u yihiin maasha Allah dad wanaagsanoo deeqsiina waa tahay markan waxaan la joognaa alfanaan Junior Boy ama JB oo kamid ah dadka maanta u soo dalxiis tagay goob weyn runtii ismaan aan ogeyn hadda baan anagoo ka imaanay halkii badii webigu isaga dareeyeen baa waxaan aragnay isagoo dhalinyarada halkan sawirada ku galaysa kamid ah Junior Boy 3 sano iyo barkoor ayuu ka dambeysay markii aan wareysi kula yeelanayay wax badan baa xilligii kadib dhacay oo isbedelay soo dhawow ilhaan la kimidiya vlog waxaad ka qayb qaadanaysaa goob weyn vlog soo dhawow mar labaad kismaayana mar labaad ku soo dhawow maxaad leedahay maanta dalxiiska ka waran oo jawiga maanta ka waran oo sida halkan ku timid oo ka sheekay horta ilaahay maanta inaan ku arko mar labaad farxad ay tahay muddaada ugu ka dambeysay muddo ay dhabiga soo gaartay ugu ka dambeysay qarax waa xasuusataa isbitaalka ugu booqatay maalinka ka dambe maanta ay noqotay inaan ku arko haddii la wada nool yahay dadku is wada arkayaan ma sha Allah ma sha Allah dalkina waa nabad aniga hadda dhib ka geystaan leeyahay dadka meel uma socdo
inaan hor u sii socdo dalka ku noolaado ها dhiirigelin wax farxadaan ka sii qaaday ilaa waxaan alka darkayga meel ii dhaaminaa sa arkin meeshan waxaan ku haysto inaan meel kale ka heli karin farxadda aan ku haystana mid aan koobi karo ma ahan ma insha Allah marka hore fanaan baan ahay maadaama dhib soo gaaray arintii waan ka haray haddana waxaan damacnay inaan dhar fashion ganacsi waxaan iska bilowno maadaama jaanishaas iska badayo nin walba wuxuu dooq u doortay ay tahay haddana waan ku faraxsanahay maanta shaqadeeda ku jiro shaqadaadana la kulmo ما شاء الله وكو فرحسنا inaad fankom baan kugu ogaayay dhaawici iyo arimihii kadib hadana aad dib dalka ugu soo laabatay oo ganacsi bilowday ku soo dhaw magaaladaadii oo ku faraxsana ganacsigaaga xaruntaadana oo kugu soo booqan doona insha Allah tacaala oo ku faraxsana maanta adigoo dalxiisay inaan ku arkay ka waran jawiga maanta iyo cimilada Gooboyn ها والله jawiga maanta mid aan koobi karo ma aan farxadiisa aad bay ii dhiirigelisay Gooboyn markii ugu hore meel kale aan ka tagi jiray maanta waxay tahay meesha ugu horeysan aan imaada xaqiiqtii aan iska bariyo jeclaysiin laakiin waqtiga isiinaynin hawo macaan mid aan koobi karo ma aan hadda aan afka sheegay hadaan ku dhaw meesha kuma soo koobi karo isha aragta un baa ka bogan kartaa ma sha Allah soo dhaw walaalkay mar kale waxaan ku leeyahay aad u mahadsan tahay dalkaaga hooyo ku dalxiis dalkeena aynu guuleysanayaa kule thank you magacaygu waa Riyaan Axmed Cabdi aan ku dhawahay vloggan aadka quruxda badan ee ilahan Lucky Media ka waran Riyaan maanta dalxiiskaaga iyo Gooboyn ka waran wallahi aad u macaan tahay waa jawi aad u qurux badan mararka qaarna waan ku soo dalxiisnaa si aan u daawano dalageena quruxda badan magacaygu Jiftaax Cabdullaahi Cabdi oo ka yimid dhanka Kenya oo ku noolaa muddo badan haddana wadankiisa imaaday magaalada Kismaayo ma sha Allah maanta jimca waayay waxaan u soo baxay inaan soo dalxiis tago waxaanu waraysi la yeelanay gudoomiyaha deegaanka Gooboyn Cumar Cabdullaahi Maxamed Cumar Hurow oo nooga sheekeeyay taariikhda Gooboyn iyo hibooyinka Allah goonida uga dhigay Gooboyn waxay kulansataa afar miim maada quraanka afar miim bay Gooboyn deegaanka Gooboyn ay kulansataa maa'ul bahr oo biyaha badda ah maa'ul nahar biyaha webiga maraaci oo daaqa ah mazaaric oo beeraha afarta miim Soomaaliya 18 gobol dawladda dhexe siyaad barre min waqooyi Soomaaliya ilaa koonfurta Soomaaliya deegaan la mid ah deegaanka Gooboyn lama helayo Soomaaliya ana deegaan kulansaday afarta miim kulansaday aan Gooboyn ka ahayn ma jiro ana maqraatika marka taariikhdoodu hadii aan gadaal ugu noqono waa mid fog waxaan ku noolaa ajaanib badan ayaa deganaa sida muxuu ahaa carabta oo kale hindiyada ayaa deegaanka deganaa beere bay meesha ku lahaayeen guriyay ku lahaayeen niman maartay muxuu ahaa taariikh ku lah ayay ahaayeen Soomaalida deganna sidaas ay u deganayeen aduu ilaa iyo 2 qarni 3 qarni Gooboyn way soo jirtay ma sha Allah aad iyo aad ustaad buurahan bacaadka ah ee badda waxaa la ii sheegan xog ku helay inay guryo ka hooseeyaan guryahaasna dadkii lahaa ay qaarkood dibadaha jiraan marka ma run baa in buurahan bacaadka ee dheer aan soo aragnay ay guryo ka hoos jiraan dhisan adeer macaan waa taas waa wax jira weey wax xaqiiqo weey Gooboyn muxuu ahaa bacaadkaas aad aragtay buuraha aad sheegaysid muxuu ahaa dagaalkii Talyaani iyo Ingiriis markii koonfurta ay ku dagaalamayeen 1940 meesha xero military weyn ayaa ahayd waxa ka sokeeyay guryo badan oo maartay muxuu ahaa ciidaas ku habsatay oo dhulka galay magaalo weyn bay ahayd meesha oo xero military kala gedisan oo Ingiriiska iyo Talyaaniga oo isaga dambeeyay iyo muxuu ahaa xaafadan ayaa ahayd marka bacaadkaas aqriyo bacaadka aqriyo waaw cajiib waa ma la isku dayo marka in la soo saaro wali hada bacaadkaas awood dawladeed iyo awood naga weyn ayuu u baahan yahay midaan maartay muxuu ahaa anagu aan wax ka qaban karno maaha gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu ganacsatada iyo maalqabeennada Soomaaliyeed ugu baaqay inay maal gashadaan Gooboyn baaq cod dheer ayaan halkan u sii marinaya dhammaan shacab weynaha Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku abtirsada saddexda gobol ee Jubbaland
in ay maalgastaan dhulkan muxuu ahaa dahabka ah ee goobweyn dalku waa nabad dalxiiskana ku wanaagsan run ahaantii waxa uu ahaa wax qurux badan intii aanu markaasi dalkeena quruxda ka jirto iyo nimcada ka jirto iyo horumarka ka jiro iyo markaasi bilicda iyo sida loogu dalxiisay dadku say ugu xiiso qabaan ugu hamuun qabaan inay dalkooda ku dalxiisaan oo wax runtii aan caadi ahayn waxaanu dalkeena ku dhisan karnaa danguud iyo dadaal midaysan aynu wada guuleysan ayaan idin leeyahay dhamaantiin saaxiibada ilaahan la kamiidiya ku taxan markaasta vlogyada aadka u jecelna vlogyada soo badino waan rajaynayaa qurba joogta si gaar ah aadka ugu taxan barnaamijyadan inay dalka maalgashan doonaan ilaa maanta halkii aan soo arkaynay ilaa halkaas maalgelin badan buu dalku u baahan yahay fursado badan baa ka bannaan dalkeeni hooyo so welcome imaada dalka hala dhisto hala soo dalxiiso deegaanku waa nabad waxaan idin leenahay hala soo yaaco way ku mahadsan yihiin saaxiibadii ilaa iyo saaka markaasi juhdiga dheeriga bixinayay ee kaameradihii kala duwanaa quruxda badnaa iyo markaasi muuqaaladii quruxda badnaa inaan idiin soo gudbino sababta u ahaa oo ugu horeeyo Cumar Siyaad Axmed markaasi Maxamed Kiyaas iyo sidoo kale Cabdiqani Shaakir aad bay u mahadsan yihiin sidoo kale Maxamed Braacha ayaan u mahadcelinayaa cid kastoo vloggan ka dhex muuqatayna waxaan leeyahay thank you alintaa ku lahayd anigoo ilaahan la barnaamijka idin tabinaysay sidoo kalena farsamada iyo qaabaynta lahayd inta aynu barnaamijkiisa xigay kulmi doono vloggan xiga intaaynu insha Allah kulmi doono waxaan idin leenahay dalku waa nabad dalxiiskana ku haboon aynu wada guuleysano ayaan idin leeyahay bye bye العالمين حواي وسودالني إلا ساكن هلكن كقرعاني حتى أنا واشنتي قلبني صنا شنتي قلبني ما وايس إلا أنت أسوحنا كتيرنا شقة الحمد لله فلاقي والنص ودماذي هالكاسان إسكا قراص وقري هذه يدنا روسي أمراية أمراية تم كاسو صارت والله تم كاسو صار عمر عمرك هالكن كان ninkaas ugu jirtay been ma aadiya marka maxaayad goobweyn baa joognaa maxaayad kaliya oo dadka magaalada soo galay imaadaan aadiya halkaasaan waxaan ku yiri casariyo wanaagsan baa idin leenahay waxaan ku yiri waa sii dheelmanaynaa imika wixii ka dambeeyo magaalada aadaynaa lagu gaajo baxayo